بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. walaalaha Soomaaliyeed meel joogtaan ba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala idinku ma yeelo cidii dhibka Allah ka qaado, cidii dan la Allah oo fiyo, inta baahan Allah deeqo, inta bugta Allah bogsiyo, intii dhimatay Allah u naxariisto, waalidiinteena Allah u naxariisto, annagana Allah nooga daba naxariisto, dalka diinta dadka iyo dawladnimadaba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inoo badbaadiyo. xagee ka bilaaba ninba waxa laga sheegay haddii aan taliyo oo taladayda la qaadan waayo waxaan jeclahay in bowda laga jabo. anigu saamali Soomaaliyeed wax badan baan wax idin sheegay. waxaan idin sheegay maanta ma haysaan. markaan idin leeyahay dadkan mucaaradka isku sheegay iyo siyaasiga Soomaaliyeed waa nin ajnabi u shaqeeya, waa nin dalka dantiisa aan la tusin, oo aad isleedahay marka qaarkood war ninkan cadaawadda uu muujinayo dadku maxay u arki laayihiin uu dalka u muujinayo. maxay yiraahdeen ha lagu noqdo kumeel gaarkii, kumeel gaar ha la geliyo dalka. xasan ha laga qaado, guddi ha loo dhiibo oo dalka xukuma inta doorashada ay dhacayso, dastuurka ilaaliya ee doorashadana qabta. chapter 7 ha lagu celiyo dalka, ha la diriro oo markaa al-shabaab ha qabsado. labadaas option weeye waxay nimanku miiska soo saareen. markaan idin leeyahay nimankaani siyaasad ma yaqaanaan waad ila yaabaysaan. waxaan yani mararka qaarkood idhaahdaa war dadkan armaaba meel loo wataa Soomaaliya la yidhahdo, dalkan Soomaaliya la yidhahdo armaaba meel loo wataa. mahamaha waxay habar jeclo muuse waa kaa dad bay kuwaasi waxay u yihiin niman khatar ah oo maqaawiir ah oo siyaasiyiina. waa kaa siyaasiyiin. chapter 7 maxaa laga soo maray? maxaa dhib laga soo maray? hadda in dib loogu celiyo cunaqabatayntii hubka, in dayn cafiskii laga noqdo, in hawadeennii Nairobi lagu celiyo, in badeennii muran kale la geliyo ama laba qaato. ileen transitionkaasi ku bixiyeen oo iyagaa bixiyey ay ku bixiyeen in dib loogu noqdo, in dalkii uu inta burburo kala tago 30 sano wixii lasoo dhisayey oo halkan lasoo gaarsiiyey oo rag ku soo faramurxay oo dhib iyo macni loo soo dhafray habeeno badan halkaa meeshii la keenay in dib looga celiyo. aragtidaas saa u gaaban oo baaba ah nimanka wataa siyaasiyiin inoo ah 40 xabo weeye, iyagaa recycle isku sameeya, iyagaa iskeenaya markii la dhaca kaasa la keenay, iyagaa nagu soo noqnoqonay. Soomaalidu inay kacdo oo ay dad noqotana lagu kari waa dad maaha. Soomaalidu dabkaa lagu shubaya, diyaar bayna u yihiin, iyagaa raalli ku ah. qaar baa karkaraya oo qaylinaya. markaan idin leeyahay wada xamati iyo xaftar miiran baa dalka xukuma, tuug baa xukunta, shaqaystayaal baa xukuma, ajnabi niman u raran baa xukuma. adeer waxaan ka hadlayaa intaa weeye. maxay yidhaahdeen maanta? shalay wixii ay lahaayeen dowladdii ka horreysay bay ku lahaayeen ka soo bax madaxtooyada, banaanka u soo bax. odayaal waaweyn oo 80 jiro muuse yelaxow iyo ay ka mid yihiin, xasankaasi ku jiro iyo kuwo kaloo leeg baa banaanka taagna. soo bax ajnabiyow, qabso dalka, soo farageli. kuwii qorayay waad garanaysaan oo ka hadlayay baraha bulshada chapter 7 dalka lagu celiyo, kuwaasay ku jiraan. hadda chapter 7 dalka la geliyo kuwii lahaa maantana way idinla bareereen. dowladda berri timaadana saasoo kale ula hadlayaan, ta ku sixitana saanay ula hadlayaan. Soomaalidu inay kacdo oo hurdada ka kacdo yaa loo baahan yahay. chapter 7 iyo magaranaysaa kumeel gaar waxaa la geliyey Suudaan iyo Liibiya, saynta iyo dibkaa la isugu xiray. saasay ila meeraysay ku jiraan. Soomaaliya meeshaas ilaahay baa ka soo saaray, bartii ha lagu celiyey yiraahdeen. waad ogtahay al-shabaab iyo al-qaacida iyo argagixiso Israa'iil waxay u shaqeeyaan iyo wadamada la midka ah, kuwaanuna iyagay u shaqeeyaan. waa isku group, waa isku rag. al-shabaab inuu qabsado dalka ha u malaynina qaar baa ku dakhran oo ku dhakran
دينتا مجاهدين الشباب الحركة قاربة كلها كرن وقبائلي ضد عاديين ومدح بنان تصالوا قاتا كي سوريا هي إسرائيل ما لصح هشيس دفاع ويلا درنا يا مرك عدوي سواكيه مسلم كان له هذيك سنة إمارات ميلو سوق لي هوج يبا إني بربرته أيا لو خصب أو أن لوجا مارني وهذا كده أنت كوا دفاعية أو لو سوديبي أو أيو سوديبي كوا معمول للجوجا أيو سوديبي لنا عكله حسن هوس بالله شيء عندي شيء يا ولا بريء رقبة بريء سياسيين هراي بالله قريبا دركتين ولوجا هذلي سبب ليها أو كرهنا والله هذلي وأدقي سنة لبدي مدحويني هراء أو تاجن ولا حسنوا ولا ذلك ضد أجنبي جعنت هوجلين أنا قد نصاد حديق نو كالي أنا كوضة تشنو إنك إسرائيل ذلكي إنك أنك تشنو دنتين أنا قان أجنبي هادي نو تناسل ماي ها والشلي سؤالي ما هين كوان هذا قيلني يا كاني حسن كل جود يا سودر يعطك وكاني سو الشلي ما هين أديك يجروب كان هذا قيلني أنت هتلاحظين سو أنت ما هين ما أنا ذكرني با واد أكتهي ماشي أوسعت إنه واد فهميسها لكن كحومين يدنا كلا إن هاد وضو يعد كلا إن أول رجنتهين وتشدد TFG مركل قال كسر بحث واحد تاعي إن اللي يرهده سؤال لان انتي قيل سترهده وحاس دل ماها دولة ما نقول كران صدر يشان سنة صدر يلح سنة كدب بيدي بقول لابتين كميل جار أنا هنا لفصحه أنا وأن دولة نقولنا ومركل يرهده هلا تشرو كده لو صعد انت dalka in la kala gogoyara Puntland raaciya ha oo loo ballan qaaday hore loogu ballan qaaday raaciya iyadana sababta gaalka ay dagaalka looga karkarinayana taa weeye xasan waad kula jirtaa dagaalkaas waxbaad ka abaabulaysaa buuqaas inuu ka caad rabtaa waa diidan tahay Soomaali inaad dhex dhigtid taladii waxaad rabtaa inaad ummad kale u dhiibtid dan kama lihi dalka ujeedo kama lihi aan ahayn أما أنا عنا عد كانوا أما كعناي أما كعيدي أما أنا عناية أما وأنا بربرينية يقدم بين ميسو هاي إرسطو صورة هاي إرسطو بإرسطو وقعنتي هذا كبالو فديها وحيابها كلو عبتا وفضيحتا وحكمها ساسي ودق مجرين ورقدا يدري جرين تركيا حسين هوب عنقبتين تودن كيان لقا قادين هوبكا دين كيان لعفين أنا أقول مش يجيو waxaan aynan arag oo public aynan ku arag iyaga isla soo taagay oo public u sheegay iyadoo duuban codadkeedii aad heleysaan soo qaato dhageysta yaan deynka la cafin yaan hawadeena la soo qaadin ma haysan karno meesheedii lagu celiyo kuwaas aan ku ilaha waxaan ku jiray waxa kanu dawlad ma yaqaanin dawladnimo ma rabaan dalka iyo wadaniyad iyo jacayl dal jacayl kuma jiro cida kale u shaqeeyaan kulligood dad kale u radiyeen markaan leeyahay war waxa kan aynu iska qabanno dad baa waxay arkayaan nin yani extreme ama aggressive that is what it is runta la wajaha hadaadan runta wajihin hada been baa ku noolaanaysa beenna meel waxba lagu magaa meeshii maanta oo meeshaasan taagnaanayna dadka aynu siyaasiyiinta u naqaan oo qaarkiin aad u saabisaan oo mashxarada 24 saacadood la daba taagantihiin waa kuwa aruurta garanaysa waxay ku hadlayaan inay wasakh tahay ma garan karaan in ummadda ka xishoodaan maxaa yeelay ummaddu markay cunaan oo dhibaan oo dhibaateeyaan oo wax walba ku sameeyaan oo ay soo hor istaagaan bay u mashxaradayaan maxaa ku kalifay markay inay isbedelaan 10 jeer ay ku yiri ka daaya sacabka ka daaya mashxarada su'aalaad adag weydiiya gaar ahaan dhalinyarada in badan baa la hadlay war dalkan idinka leh dawladnimo aanu konton qofkii jira iyo ka yar 45 iyo wixii ka yar qofkii jira dawladnimo ma soo arag macaankeeda ma dareemi karo mana garanayo 36 sano iyo mid qofkii markaa 6 jir 7 jir 8 jir ahaa dawladnimo ilaa 10 jir dawladnimo waxa kama garanayo
ما soo arag macaankeeda ma dhadhamin waxay qabato ma yaqaan waxaanu dowladnimo u arkaa iyo reer hebel maxayna ka damceen iyo reer hebel aan karkaarka weydaarino intaasoo dowladnimo u arkaa marka masaakiin baa tihiin anaa idiin warramaya dhegaysta sidaani dowladnimo maaha in badan oo idinka mid ah caalamka ku nooshiin ma siyaasi baa loo sacbiyaa mise siyaasiga waa lagu oriyaa haddii uu kelmad khaldan oo dalkiisa iyo magaranaysa dadnimadiisa xornimadiisa taabanaysa sovereignty-ga Soomaaliya wax taabanaya markuu ka hadlo wadankiisa sovereignty-giisa madax banaanidiisa wax taabanaya markuu ka hadlo oo si khaldan uga hadlo ma gacanta loola tagaa ilaa uu resign gareeyo mise waa loo sacbiyaa looma sacbiyo accountability waxay ku timaadaa qofku waa inuu horta og yahay in la xisaabtamayo haddaadan bal la xisaabtamayo tiraahdo sax weeye waad aragteen waxaan ka hadlay usbuucii hore deni oo leh PSF waa la dagaalamaya horey buu la dagaalami jiray muxuu ku soo daray warqad buu soo saaray uu leeyahay PSF kuma jirto ciidamada Puntland gala hadda madaxtooyada Soomaaliya waxa gashaan xerada 54 taliyaha ciidanka korkiisa fiiriya shaxda ciidamada ku sawiran PSF halkaas ka qoranta maxaa aragteen Cismaan Maxamuud oo soo fariistay oo yiri haddaan ma beesha Cismaan Maxamuud waxaanu u sheegaynaa madaxweynaha PSF inay ka mid tahay ciidamada Puntland waa idin sheegay Puntland isagay ka weyn tahay PSF maxay isku qabteen maxay isku hayaan maxaa loola dirirayaa adinka idin deynaya adinka meesha jooga waxaan idin sheegno ma maqashaan 24 saac waa sacbinaysaan gaalka ayaa laga karkarinayaa dagaal horaan idinku sheegay waa la soo wadaa baan idin yiri ma haysaan mise ma haysaan diyaar ma yahay hadda inuu xabadda bilaabo dadku ma qaylinaya war naga daamin leeyahay idinka daynaya marka intaan sheegay intaa way maanta dalka Soomaaliya in la geliyo marxalad ka fog meeshii uu 1991 iyo 92 joogay ayaa la qorsheynaya ciidamada sababta loogu diiday in lacagta loo sii wado oo loo leeyahay hal la saaro ciidamada inay baxaan oo ciidan Soomaaliyeed kala wareegaan rabay transition baa socday system bay ku socotay xasan baa ku tuntay ciidamadii burburiyay wuxuu eriyo iyo wax la laayo iyo wax dagaal macna darro ah oo aan la garanayn intuu geliyo maalin walba adogtiin inta meelood boqolaal askari la dhigay inta qaxday oo carartay oo caalamka iska gashay oo meelahaas ku wada baaga muddada ah inta aan rabinba inay dagaalamaan oo markii cadowga laga hor yimaado dibadda ku dhacayo cararaya because ma doonayaan inay ku dhintaan waxaanay garanayn markuu ciidankii dismantle ku sameeyo baabi'iyey oo burburiyey hadda in la yiraahdo ciidankan kaala baxayna ujeedada laga leeyahay waad garan kartaan al-shabaab soo galo power vacuum ka ka faa'iideysto muqdisho iyo maskaxda iyo madaxa ummadda ha qabsado ujeedada laga leeyahay intaa way dadkii difaaci lahaa dalkana waxay taagan yihiin war chapter 7 galiya laba wareega meesha halkaas taagan yihiin marka Soomaaliya Ilaahay baa idin maqan dad shacab oo iska masaakiin oo tiro badan baa tiin aad baaba waliba reer Puntland waa la burburinaya waa la daro lama burburin karo xasan haddii uu burburin karo mar hore buu burburin lahaa he can't ma burburin karo taasi waa qodobka labaad maanta maxaa la idin tusay tuuta la idin tusay waxay tuuta la soo geli oo tuuta huba tuuta yudila waa dhare maanta waad aragtay ninkii iska lahaayo leh laascaanood baa dukaanada iga furayo dharka noocaasaan ba ku gadaa badeecadayda halaysiyo ganacsi aan leeyahay weey oo aan ka shaqeysto horeen u soo gelin jiray waligay meeshaan marin jiray waad aragtay waa la orday waka wixii la sheegay intaad saatihiin tasuu doonay idinka yeelaya waana u sacbinaysaan muxuu isu bedelayaa isagii caruurtiisa iyo naagtiisu inay gurtaan waxa meesha yaalla soo idinku kuma abaalmarin sacab iyo mashxarad maxaa u diiday inuu sii wado inuu ka sii fogeeyo sii badiyaba maxaa u diiday inuu cashuurta idinku kordhiyo inuu dadku u shaqeynayay u sii shaqeeyo lacagta u badiyo oo imaaraad lacag idinka sameeyo idinkuna aad jabtaan fakhriina aad isku waraysataan maxaa u diidaya dowladnimada barta
marka Soomaaliya ilaahay baa idin maqan khayr badan baa idin rajaynaya bal wixii soo kordhana